بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale kanaalkeeni Cirratech. Ramadaan Kariim saaxiibaya. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga faalloon doonaa saxaabi ka mid ah saxaabadii rasuulka salawaatullaahi wa salaamuhu calayh. Inta aynaan muuqaalkeena u galin waxaan si sharaf ku dheehan tahay kaaga codsanay inaad muuqaalka like noo saarto haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biirto. in ka badan 10 sano ayuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam u ahaa khaadim. qabiilka uu ka soo jeedayna waxa uu ahaa Ansaar. waxaana ku dhacday ducadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu u duceeyay. shakhsiga aan ka sheekaynayna waa saxaabigii Anas bin Malik radiyallahu anhu. saxaabigaas oo ka mid noqday ragga ugu maalka badan Madiina, saas oo kalena lahaa awlaad fara badan ilaa isaga oo nool ay caruurtiisu gaadheen 100. markii ay saxaabadu hijroodeen reer Ansaareed, Nabiga hadiyado kala duwan ayay u keeneen. laakiin Anas hooyadii waxa ay hadiyad ahaan ugu keentay rasuulka Anas si uu ugu shaqeeyo. saxaabigani markii ay hooyadii u laqintay shahaadada waxa uu ahaa mid aad u da'yar, qalbigiisana waxa ay ku shubtay jacaylka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yacni way uga sheekayn jirtay, sidaa ayuuna ku jeclaaday rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. wax badan ayuu jeclaystay in uu nebiga ugu tago Mako, isaga oo keligiisa iyo isaga oo wafdi ahba, si uu ugu liibaano rasuulka aragtidiisa, naftiisuna bogaasin ugu noqoto. waqti dheer kama soo wareegin markii uu rasuulku soo dhex qaaday mid ka mid ah wadooyinka soo gala magaalada Madiina, taas oo uu joogay Anas oo jeclaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. guri kasta waxaa dariyay farxad, indhihii dadkuna waxa ay qabteen wadadii uu soo marayay rasuulka iyo saaxiibkii, qalbiyadiina waxaa ka buuxsamay farxad. daa'irtii waxa ay bilaabeen inay baahiyaan soo gelidda rasuulka sallallahu alayhi wa sallam subax kasta, iyaga oo dhexdooda isugu celinaya in uu yimi rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Anas waxa uu u soo carari jiray xagga rasuulka isagoo ay weheliyaan daayarta muslimiinta, laakiinse ma uusan arkaynin rasuulka. waxa uuna gadoomi jiray isagoo murugaysan. subax subaxa ka mid ah, taas oo carafteedu daran tahay muuqaalkeeduna dhalaalaya, ayaa waxa ay sheegeen rag ka mid ah raggii magaalada Madiina inuu soo dhowaaday rasuulka iyo saaxiibkii. waxa ay guda galeen inay eegaan oo qaadaan jidkii uu soo marayay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. koox ayay ugu baratamayeen soo dhoweynta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. kooxahaas waxaa ka mid ahaa kooxa ay hogaaminayaan da'yartu, kuwaas oo ay qulubtooda hadhaysay farxadda ay u qabaan rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. kooxahaas da'yarta waxaa hogaaminayay Anas bin Malik radiyallahu anhu. dumarkii qarsoonaa iyo carruurtii yaryareedna waxa ay bilaabeen in ay fuulaan guryaha dushooda, iyaga oo istusinaya rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. maalintaasi waxa ay ahayd maalin adduunku ka makhraati kacayo. Anasna waxa uu ahaa mid ka sheekeeya maalintii uu rasuulku yimid magaalada Madiina ilaa uu cimrigiisu gaadhay 100. xataa markaa waa uu ka sheekayn jiray. Qumaysa bintu Balxaan oo ahayd Anas hooyadii waxa ay u timid rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyada oo uu la socda Anas. nebiga ayay salaantay, waxa ayna ku tiri, rasuulkii Ilaahay cid waliba wixii ay jecleed ayay kuu soo hadiyeysay. anna ma helayo wax kale oo aan hadiyad kaaga dhigo oo aan ahayn inan ka yar ee aan dhalay. kan qaado kana dhigo mid kuu shaqeeya, inta aad doontana ha kuu shaqeeyo. rasuulku wuu dhoolla caddeeyey inankii yaraa, madaxa ayuuna u salaaxay, sidaa ayuuna ehelkiisii ugu daray. Anas 10 sano ayuu jiray maalintii uu ku guulaystay inuu noqdo khaadimka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Anas waxa uu ku soo koray naxariistii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo gurigiisa ilaa uu Nabi Muhammad ka geeriyooday. Anas waxa uu rasuulka la saaxiibay 10 sannadood oo dhammaystiran. waxa uu weelayn jiray rasuulka axaadiistiisa iyo sirtiisa iyo waxyaalaha u gaarka ah. Anas waxa uu yidhi, rasuulku waxa uu ahaa dadka ka ugu wanaagsan, ugu dhammayska tiran, uguna naxariista badan. Anas waxa uu yidhi, maalin ayuu rasuulku hawl ii diray, kadib waxaan la ciyaaray koox dhalinyaro ah. anigoo la ciyaaraya ayaa waxaan dareemay qof xaggayga dambe taagan oo i taabanaya. waan eegay, mise waa rasuulkii oo dholla caddaynaya sallallahu alayhi wa sallam. waxauna igu yidhi, Anas yarow, miyaa tagtay halkii aan kuu diray? dabadeed waan shoogay, yacni waxaan ku hadlo ayaan garan waayey. kadib waxaan idhi, hadda ayaan aadayaa rasuulkii Ilaahay. 10 sano ayaan u shaqeeyey rasuulka. wallaahi Ilaahay baan ku dhaartay, weligii rasuulku ima odhan shay aan sameeyey maxaad u samaysay, mid aanan samaynna ima odhan maxaad u samayn weyday. rasuulku haddii uu wax u dirayo Anas waa uu yarayn jiray. waxa uu odhan jiray, Anas yarow. mararka qaarkoodna waxa uu dhihi jiray, wiilkaygiiyow. dardaaranadii uu rasuulku siiyey Anas waxaa ka mid ahaa, wiilkaygiiyow, haddaad awooddo inaad subaxaysato, sidoo kalena aad galabaysato, adoon qofna caloosha waxba ugu haynin, sidaas samee. arrinkaasina waa sunnadayda. qofka nooleeya sunnahaygana anuu i jeclaaday, qofka aniga i jeclaadaana jannada ayuu macayga ahaanayaa.
wiilkaygiiyow haddaad u soo gasho ehelkaaga salaan waxa ay ku noqonaysaa barako adiga iyo ehelkaagaba. 80 sano ayuu noolaa Anas dhimashadii rasuulka kadib, ummadana waxa uu uga faa'iideeyey cilmigii uu ka dhaxlay rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo hadyigii nebigeenna sallallahu calayhi wasallam. Anas waxa uu noqday meesha ay muslimiintu u laabtaan marka ay isqabtaan dhexdooda iyo marka shaki yimaadaba. Anas bin Maalik waxa uu ahaa shakhsi aad u xusa rasuulka sallallahu calayhi wasallam, sidoo kalena waxa uu ahaa maalintii uu rasuulku dhintay mid aad u hooyey. waqti kastana waxa uu ku celcelin jiray hadalladii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxa uu samayn jiray waxyaalihii uu rasuulku samayn jiray, waxa uuna jeclaa in uu aad ugu daydo rasuulka sallallahu calayhi wasallam. 2 maalmood ayuu aad uga sheekayn jiray Anas. maalin waa maalintii uu la kulmay rasuulka ee ugu horreysay, halka maalinta kalena ay tahay maalintii uu rasuulku macasalaameeyey dunida. Anas waxa uu yidhi, daymadii u dambaysay ee aan rasuulka eego waxa ay ahayd maalin Isniin ah. Rasuulku Anas waxa uu ugu duceeyey in uu Ilaahay ku irsaaqo maal iyo awlaad, Ilaahayna labadaaba waa uu siiyey. Anas waxa uu noqday ka ansaar ugu hantida badan uguna dhammayska tiran. carruurtiisa iyo waxa ay dhaleen marka la isku daro waxa ay gaadheen 100. sidoo kale waxa Ilaahay u barakeeyey cimrigiisii, waxa uuna gaadhay qarni iyo 3 sano. waxyaalihii uu Ilaahay weydiistay waxaa ka mid ahaa in uu nebiga u shafeeco qaado maalinta qiyaame. markii uu haleelay xanuunkii uu u geeriyooday waxa uu ehelkiisa ku odhan jiray, waxaad ii laqintaan laa ilaaha ila allah. markii ay naftu ka baxdayna waxa ay kaga baxday kelmadda qiimaha badan. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaanteen inagu dilo kelmadda qiimaha badan, sidoo kalena nebiga kuwa lala soo bixiyo inaga dhigo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan haddii aad halkan nala soo gaadhay muuqaalka like noo saar. mahadsanid.